فيديو يصدر بيبي war boyfriend iska dhaafe iska daaya ma aragtin in aad waxay ka dhaxeeyaan video aad ku aamintay iyo ma aragtin naas dhinac ka soo jeedo aad u dirtay iyo iska dhaafe ku qaba isdhaxda kugu qaba baby taraagan wadaay bil iyo laban ka maqnaahay isoo dir sawir aad ma aragtay soo taana qabto ma bijaama xiran tahay adoo ku yiraahdo soo dir sawir aad ma aragtay soo taana qabto ma bijaama xiran tahay adoo ku yiraahdo oo u dirtay kaba soo qaad waa u dirtay بلا آدم وأنت الفوكس اللي استعماله ولا قاطع قف كلب بحو كسكو وابا ولا كرياه قف كان بلا آدم ما هو ولا كرياه هذا واسك وراسك كم أو فيسبوك ستوري ماي وايف كسوقه أما سناب ماي وايف يا ما ولا كرياه بلا آدم ولا كرياه بلا آدم ولا كرياه بدي هذا كلام أرتك قبلها ولا قبل هذا قبلها ولا قبل هذا قبله واحد يوم يغني قبلها واحد دلو ما يقانان قبلها ما شاء الله قلت شبي ونورمال عادي العباس أردها كسو قلع بوم والوسو قريها أما سناب شات أو الفيسبوك ما لك أصدق وصولي يعني ما قوى أركتين waxaan kaamirada ma nagu cusub iyo wax la duubay in waxa waaye ii sheeg xoogay dad aad u dambeeya fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa soo karbaashtay hablaha u dira wiilasha muuqaalada qaqaawan iyo sidoo kale sawirada waxaana ay u sheegtay in ay ka digtoonaadaan Farxiyo Kabayre oo cod soo duubtay ayaa waxa uu muuqday in fanaanadu haba yaraatee aanay ka jihayn ama aanay ka xishoonayn hadallada qaar taas oo fanaanada aad moodo in ay aad ugu dhagan tahay dumarka gaar ahaan kuwa laga dalbo in muuqaalada ay soo duubaan sidoo kale ay u soo diraan waxaana sheegtay in sidoo kale ay runtii aad u xun tahay in muuqaaladooduna ay dhici karto in inta raggaasi lagala baxo moobiladooda sidoo kale la soo dhigi karo baraha bulshada waxaana uga digtay dumarka in gabi ahaanba ay ka digtoonaadaan si kastaba haatee fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa waxay caan ku tahay fanaanada inay soo karbaashto dadyowga qaar sidoo kale fanaanada caanka ah Farxiyo Kabayre waxay ka mid tahay fanaaniinta aan hadalka ka gamban ee baraha bulshada muuqaalada kala duwan soo dhiga sidoo kalena aad u soo karbaasha shakhsiyaadka qaar gaarka ah ay iyadu u aragto in ay nolosha ka dhacsan yihiin Kabayre ayaa waxaa lagu yaqaanaa in gabi ahaanba ay hadallada ay dadka kula hadlayso ay yihiin kuwa hadalla cad oo ay meel ku taabanayso Farxiyo Kabayre sidoo kale waxay inta badan weerartaa dadka ay u aragto in ay shakhsiyadeeda ka soo horjeedaan ama in waxyaabaha baraha bulshada ama waxyaabaha lagu hadalhaynta badan leh ee baraha bulshada la soo geliyo fanaanada caanka ah Farxiyo Kabayre ayaa sidoo kale arrinkan ay kaga hadlayso in sawirada qaqaawan iyo sidoo kale muuqaalada anshaxumada ah ay raggooda u diraan taasi ay hadda u muuqato fadeexad weyn oo fanaanadu ay soo bandhigtay hasaade fanaanadu waxaad moodaa in maalmihii ugu dambeeyay ay soo duubaysay muuqaalo kala duwan oo aanayba xishoonayn taas oo aan ogsoonahay in Farxiyo Kabayre wax kasta oo baraha bulshada iyo wax kasta oo ay aragto oo nafteeda ay la jeclaatay inay ka hadasho sidoo kalena muuqaal ku soo duubto barta ay ku leedahay Snapchat-ka halkaas oo u ah meesha kaliya ee mar walba ay ku soo duubto muuqaalada sidoo kalena muuqaaladeeda laga soo qaato oo baraha bulshada la soo geliyo codkan ay soo duubtay fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre ayaa dadku qaar isweydiinayaan waxyaabaha ku kalifay iyo waxa ay fanaanadu uga jeedo taas oo aan ogsoonahay in fanaanadu ay banaanka soo dhigtay wax walba oo ay dadku ku wada hadlaan oo ay xoogaal u tahay Farxiyo Kabayre ayaaba dadku isweydiinayaan oo leeyihiin talowma iyada ayaa laga dalbay in muuqaal qaqaawan iska soo duubto sidoo kalena loo soo diro laakiinse dadka qaar ayaa qaba in arrinkaasi uu yahay mid meeshiisa yaala halka dadka qaarna ay leeyihiin fanaanadu way ku saxsan tahay in arrinkaasi ay banaanka soo dhigto ay ka hadasho si kastaba haatee fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre marka ay muuqaalada soo gelinayso baraha bulshada sidoo kalena ay ka hadlayso waxyaabaha asaasiga ah
badanka waxay mid hoos ahaan dadka ugala hadasha, laakiinse laguma ogeyn in muuqaalo noocan oo kale intay soo duubto baraha bulshada ay soo geliso. Waxaana moodaa in fanaanadu wuxuun ay kaga yeedhsiiyeen in ay baraha bulshada soo geliso deedna halkaasi hablaha wax ugu sheegto. Waxaana dhici karta in fanaanada iyada laftigeeda lagu dhibay in muuqaaladaasi ay soo duubto una soo dirto shakhsiyaadka ay kulley wada socdaan. Kabeere oo ah qof weyn oo caruur fara badan leh ayaa haddana waxaad moodaa inay u dhaqmayso sida caruur yaryar oo hadda haasaabo barad ah, taas oo aad moodo in ay tahay laacib soo jabay oo hadda aad moodaba in fanaanadu ay waxyaabo fara badan banaanka soo dhigayso, bulshadana ay doonayso inay la wadaagto, taas oo u muuqata mid gebi ahaanba iyada ku noqonaysa runtii wax iyada kusoo noqda, maadaama taageerayaal fara badan ay fanaanadu leedahay, sidoo kalena dadka qaarna ay gebi ahaanba soo dhaweeyaan oo ay aad u jecel yihiin ka hadalka ay ka hadlayso barnaamijyada noocan oo kale ah. Halka dadka qaarna ay leeyihiin fanaanadu kuma wanaagsana in waxyaabaha noocan oo kale intay dhex gasho ay kasoo hadasho, waayo fanaanadu waa fanaanada Soomaaliyeed, waxaana looga baahan yahay in fankeeda ay sii horumariso. Walow fanaanada dadka cambaareeya ay ku sheegaan inay tahay gabadh dhaqan xun oo marka ay masraxyada ka heesayso ay labada dhinac soo xirato naasadeedna banaanka soo dhigto, taas oo ay dadku u arkaan in gebi ahaanba fanaanadu ay tahay runtii qof lunsan oo gebi ahaanba doonaysa in dadka daawanaya ama sidoo kale dadka meesha yimid ay runtii kusoo jiidato, taas oo u muuqata in gebi ahaanba ay xindaabkii xishoodka fanaanadu ka baxday. Hasaatee Kabeere ayaa inta badan aan ka gaban marka ay hadlayso hadaladeeda qaar, taas oo dadku ay ku micneeyaan wax ay iyadu u dhalatay oo ay u dhalatay. Sidoo kalena fanaanada ayaa marka ay hadlaysona ay waxyaabo badan tilmaamta oo ay ka sheegtaa, laakiinse fanaanada marka runta laga hadlayo waa fanaanada runta aad ugu dhiirata kana hadasha wax kasta oo la soo gudboonaaday ama ay aragtay. Waxaanay jeceshahay in taageerayaasheeda ama dadka aadka u jecel in ay la wadaagto waxyaabaha iyada la soo gudboonaaday iyo waxa ay dadka dhibta ku hayso, taas oo u muuqata in fanaanadu ay tahay shakhsi run ahaantii iyada doonaysa in dadkeeda ay raali geliso.